الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأتقياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى waxaan baraarujinayaa ikhwaani intaynan gudagelin mowduuca khudbadda qodob horena aynu masaajidka uga hadalnay haddana mudan in aynu dib ugu soo celinno qodobkaasoo tilmaamaya baarashlayaasha masaajidka hortiisa fadhiista qofka kabaha u soo dhiibanaya wuxuu ku kaalmaynayaa al-ithmu wal-cudwaan qofkaasi inuu taariku salaad noqdo oo aanu tukan oo kabahaasi ilaaliyo oo masjidka aanu soo gelin qofkaasi aanu cibaadaysan ayaad ka raalin noqotay idan macsi ilaahay lagaga go'ayo baad raali ku noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaasi ha u soo noqdo toobad keeno kabahaana mar dambe aan loo dhiiban masjidka marka la soo gelayo الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا نكمل من مساجد كدحديث يا الباب بدل مساجد شاكر أنت هذا ودنا وبيع الداشي وهو بلا معناه إلهي الله قبضه إلهي الله جيابه وحضرك سادتك يكيو وجرة بارش لياش يودي من يكبيه وقفوا المسلمين تصلاة كشفتوا كما هذا الوصول إلى عليه ولو دين هذا إلى شنتانات كما هذا إلى عليك كما هنا اللوسو يبصر هذه الله قبضه ودadka asxaabu sharka aynu ka baqayno iyo dadka muslimiinta dhacaya loo soo iibsado waxa weeyaan baalaha yar lagu rito qof walba hortiisa ama dabadiisa